hadday tahay markii kugu horreysay aad channelkeena soo booqato waxaan kaa codsanaa maxay ahayd inaad channelka kusoo biirto kadibna subscribe aad saarto aad gambaleelka furato kadib notificationka aad all ka dhigato si ay kuu soo gaaraan dhammaan casharada aan samayn doono. Hi guys, assalaamu calaykum. Waa aniga Cabdifatax Ibraahima xagga nagala socotaana waxa weeye Somaltech. maanta waxaan ka hadli doonaa cashar kale oo ku saabsan waxa loo yaqaan input output deviceska ama qalabyada computerka in wax lagu geliyo waxna lagaga soo saaro macnaha information ku gelisid information aad kala soo baxdid loo isticmaalo labadaba ayaan maanta ka hadli doonaa laakiin ha isku qaltin maanta ka hadli mayno wax loo yaqaan input deviceska iyo output deviceska qalabyada loo isticmaalo in computerka wax lagu geliyo iyo qalabyada loo isticmaalo computerka in wax lagu soo kala saaro laakiin maanta waxaan ka hadli doonaa qalabyada computerka waxna lagu geliyo waxna informationna maxay ku siiya ayaan ka hadli doonaa labadaba loo isticmaalo deviceskaas ayaan maanta ka hadli doonaa waana cashar muhiim ah soo markaa aan ka faa'iideysano. okay haddaba maxay ahayd qalabyada computerka wax lagu geliyo ama sida xagga ka arkaysid waa input/output taas macnaha waxay ku sheegaysaa waa qalabkaasi inuu yahay qaab loo isticmaalayo labadaba. so waxa uu ku leeyahay waxa loo tixgeliyo tusaale ahaan kale arki doontaa marka sayniska macnaha calaamadaad ku arki doonto waxa weeye input output baa loo yaqaanaa I/O hadda aragti macnaha waxa weeye input output device baa la sheegaya. so input output wuxuu noqon karayaa software wuxuu noqon karayaa shay macnaha software ah sidoo kale wuxuu noqon karayaa hardware device kaas oo loo design gareeyay inuu informationka maxay ahayd computerkaaga u diro sidoo kalena maxay ahayd informationkii uu computerka ka soo qaado isagoo maxay ahayd computer hardwareka uu ka soo qaadayo componentska. tusaale ahaan kale xaggan wuxuu ku yiri soo ku cadaynaya inuu shayga maanta aan ka hadlayna una ahayn input device ama aanu ahayn output wuxuu ku leeyahay mouse-ku waxa weeye waa shay keliyata computerka wax galiya laakiin awood uma laha inuu computerka maxay ahayd information kaaga soo celiyo sidoo kale displayga computerkaaga aad maxay ahayd isticmaashid shaashadu waxa weeye shay ku siinaya output ama wuxuu ku siinaya results buu ku siinaya natiijo macnaha input-kaad gelisay kamida laakiin wax information uu soo geliya ma jirto computerka. so marka maanta waxaan eegaynaa informationka qalabkaaga wax lagu geliyo computerka isla markaana maxay ahayd lagaga soo informationka ku soo celinaya at the same time ayaan maanta ku eegi doonaa casharkeenan. okay intaas waxay overview yar ku saabsan maxay ahayd waxa uu yahay ama definitionka saxda uu yahay input output device-ka aynu ka sameynay sida xagga kaarkiisa paragraph-ka labaad wuxuu ku sheegayaa mostly maxay ahayd ama commonly used output input device-ka la isticmaalo qalabka loo isticmaalo in computerka wax lagu geliyo waxna laga soo saaro inta badan waxa loo yaqaanaa hard drive-kaaga ama hard disk-ka computerka ku jirta waxa loo yaqaanaa input output device waayo sababtoo waxaad ku kaysataa information baad ku kaysataa aad gashataa sidoo kale informationka aad gashatay waad ka soo akhrisataa macnaha. so marka waxaan odhan karnaa waa shayga ugu muhiimsan basic example-ka lagu siin karayo si aad ku fahantid waxa uu yahay maxay ahayd input output device-ku. okay intaad idinkaga soo gudubno definitionka uu leeyahay maxay ahayd computer input output device-ku waxaan eegi doonaa qaybaha computerka input output device-ka waxaa ka mid ah CD AW drive-ka ama CD drive-ka maxay ahayd nooceeda loo yaqaano AW macnaha waxa weeye haddaad aragto R haddaad aragto macnaha waxa weeye shaygaasi waa write read iyo W oo taagan macnaha write waa shay information la gelin karo informationna macnaha ku siin karaya. waxaa ka mid ah DVD-ga ka mid ah floppy disk-ga ka mid ah loo isticmaali jiray computerskii hore waxaa ka mid ah hard drive-kan soo sheegnay waxaa ka mid ah modem-iska maxay ahayd ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah network interface card-iska ayaa ka mid ah sound card-iska ka mid ah iyo USB flash-ka dhammaan waxa loo isticmaalaa waa input output device-ka waa qalab computerka wax lagu geliyo isla markaana wax kaga soo saaro. halkan wuxuu ku siinayaa maxay ahayd tip yar buu ku siinayaa wuxuu ku leeyahay drive-iska sida maxay ahayd drive-iska xaggan kugu sheegay sida CD room-ka iyo DVD-ga floppy disk-ga waxaa loo tixgeliyaa maxay ahayd USB flash-ka inay iyaguna yihiin storage devices ayaa loo tixgeliyaa ayuu ku sheegaya. okay waxaan eegi doonaa input output deviceska ku jira computerkaaga maxaa ka mid ah ayaan xaggan ku eegaynaa. input output deviceska computerkaaga ku jira isticmaashid maanta waxaa ka mid ah ugu caansan CD-ga ka mid ah DVD baa ka mid ah
nooca loo yaqaan RW labadaba la socoto loo yaqaano. waxaa ka mid ah network cardska ka mid ah hard drive-ka ayaa ka mid ah kuwaas oo dhan ayaa maxay ahayd ka mid ah shayada loo isticmaalo input output device-ka. sidoo kale waxaa ka mid ah kuwa loo yaqaano sound cardska. sound cardska dadku waxay ugu tixgeliyeen inuu yahay output laakiin output device, laakiin sidoo kale waxa uu leeyahay input capabilitieska awoodda uu wax ku geliyo. oo tusaale ahaan oo kale microphone-kaagu waxa marka uu ku xidhmo maxay ahayd computer-kaaga wuxuu kaga xidhmayaa ama u fududeynaya sound cardska isagoo sound cardku uu ogolaanayo inuu information-kaagii maxay ahayd loo diro. taasna waxaa loo tixgelinayaa inuu input ku yahay, sidoo kalena waa output oo codkii aad gashatay buu kusoo saarayo. okay, markaasna waxay ahayd si aan confusion ugu khalkhalmin. sound cardska marka lagu dhaha maxay ahayd waxa weeye output weeye laakiin inputna way yihiin. okay, waxaa ka mid a maxay ahayd haddii tusaale ahaan oo kale fileska ama fileka aad u represent garaysid in aad fileka copy garaysid computerkaaga una copy garaysid computer kale, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho USB flash. sidaa awgeed tan waxay ku cadaynaysaa USB flashka inay tahay qalab loo isticmaalo in waxna computerka lagu geliyo waxna computerka laga soo saaro. okay, sida xagga wuxuu ku sheegay older computerski shayga isticmaal jiray inuu yahay waxa loo yaqaano floppy diskiga. okay, so shayga ugu dambeeya maanta eegi doona waxaa noqonaya why does computer need an input output device-ka muxuu ugu baahan yahay computerkaagu input iyo output-ka. computerkaaga haddaan lahayn maxay waxa loo yaqaano input iyo output device haddaan lahayn computerkaagu ma shaqaynayo. tusaale ahaan oo kale haddaan soo qaadano maxay ahayd hard drive-ka ama maxay ahayd hard diskiga computerka waxaa lagu store gareeyaa waxaa loo yaqaano operating system-kaaga isla markaana waa laga access gareeyaa maxay ahayd operating system-ka. sidoo haddii aan computerkaagu u lahayn hard drive ma jirayso operating system meel lagu kaydiyo. so markaas output devices-ku su-aashu ina weydiiyey ahaa maxaynu ugu baahanay output input device maxaynu ugu baahanay qalab computerka waxna inoo geliya markaas isla markaana wax inooga soo saara. sababtu waxa weeye computerku isaga la-aantii ma shaqaynayo. tusaale ahaan oo kale another example haddaan soo qaadana internetka si aad ugu xidhanto waxaad u baahan tahay input output device loo yaqaan NIC ama network interface card kaasoo ku ogolaanaya maxay ahayd computerka inaad internetka ku xidhato. okay, laakiin haddaad isticmaalin ma ku shaqaynayo internet. so basically maanta casharkeenu wuxuu ka hadlayay input output device-ka ahmiyadda uu leeyahay information-ka maxay ahayd kugu xidhan. okay, marka haddii casharkaada aragtay inuu ku yahay muhiim ama maxay ahayd ka hesho waxaan kaa codsanaa maxay ahayd in aad kusoo biirto channelkeena sidoo kalena subscribe tiraada asxaabtana la wato waa mahadsantiin.